halkan waa u jeedaan dani isagoo khudbad buu samaynayaa soo dhawaada channelkayga African Culture meeshan waxbuu khudbadeynayaa dani wuxuu leeyahay waxbaan qabtay 2 maalmood ka hor buu soo daayay warkan waxbaan qabtay adduunyada sameeyay kidaan sameeyay sharcigiiba waxaan ku soo celiyay awooddu ku soo celiyay ciidamo awal jiray oo koox lahaayeen baan baabi'iyay wadooyin baan lacagtii aan ay qaadan lahaayeen ku bixiyay daniyow muhiimadda horta waxa waaye meesha tan waxa waaye Soomaaliya Puntland dalmaha waa gobol kamid ah gobolada Soomaaliya hadda maamul goboleedada la sameeyay waaye adigana waxaad tahay gudoomiye goboleed baa tahay madaxweynaha anagu waxaan u naqaanaa madaxweynaha midkaas fadhiya Muqdisho u naqaanaa madaxa dalka u ah maxaan ku iraaday tadiito hadee waxa weeyaan haddii meesha madax adiga lagaaga dhigay micnuhu ma aha in maaragtay taladii aad ku takrifalatid ma aha waxaa la rabaa inaad ka shaqaysid wanaagga dadka wanaagga Puntland inaad ka shaqaysid baa la rabaa nabadda ka shaqaysid wax ugu muhiimsan qofka shaqayn kara waa nabadda markii meel madax looga dhigo nabadda inuu ka shaqeeyo qofku inuusan keligii tala goosan inuusan meesha dhulka maaragtay dadku degan yahay uusan dhibaato dadkii gelinin wax dadkii iska hor imaad ay inay yimaadaan maaha oo dadkii isaga hor imaanayaan waa oo dhibaato dadkii ay ku imaan karto dadkii walaalaha ay ehelka ahaayo farta ahaa in dhib ay ku imaan karto inaad ka ilaalisid baa la rabaa xoogaa shaqo waxbaa soo socda intaa waxaa lagu haystay dowladda dhexe iyo xaalkeeda lagu haystay maantana waxaa soo socota Puntland baa wax ka socdaan oo waxbaa iska hor yimid oo waxbaa sidan la sheegayaa dadka codkiisu aad buu muhiim u yahay shicibka iyo dadka Puntland degan markay soo sheegtaan codkooda waa inaad u qaadataa maaragtay si serious waa inaad u qaadataa waa inaad dadka xaal gelisaa anaa meesha madax oo hadda meesha fadhiya maaha in la yiraahdo waxa weeyaan waxa meesha soconaysa waxa weeye kaala ila shaqeey kaala wax ila qabtay kaala ila hagaajiye raali gelinta dadka madax waxaa lagu noqdaa qof kasta oo maaragtay dacwad qaba inaad dacwadiisa aad qaadatid ood soo dhaweysid tiraahid dacwadaada waa eegayaa wixii aan ku qaldamay waa saxayaa wixii qalad dadku ay diidan yihiin inaad dhageysatid oo saxdid baa la rabaa qalad iyo saxba waxay yihiinba inaad saxdid oo qof walba oo dacwad soo sheegta aad raali gelisid baa madaxa lagu noqdaa madax laguma noqdo war markay dadku ay qof ka soo dacwoodo oo dacwad keensado inaad tiraahdo war bax dacwadaada wax looma baahnay xagga ka daaqada ka tururiya anaa meeshaan fadhiya hadde taa looma baahna taa madax laguma noqdo macna leadership fiican laguma noqdo leadership fiican waxaa lagu noqdaa markaa qof kasta dhageysatid saqiir iyo waayeelba aad dhageysatid oo warkooda dhageysid dacwadooda dhageysid hadalkooda dhageysatid aad maanta dhaga u raaracisid aad dhageysatid oo wixii ayagu ay rabaan oo macquul ah u sameeyay isku daydo qof kasta inaad raali gelisid haddii dacwad ay soo jeediyaan adiga dalka kan iyagu shaqo ka soo qabtay waa ku khasbantaa inaad dhageysatid maaha adigu dalka kaligaa ma lihid waa lagu leeyahay qof kastoo reer Puntland ah kula iyo Soomaalida kale oo dhan waa inaad dhageysatid oo dhagaa u raaricisid oo dhiin meesha tanna ka amiir ah sida Afrikaamadii taasiyaad bartii ku tagay waa Soomaaliya ku burburtay waa mingista ku tagay siyaad barra ku tagay abayba hadda Axmed ba hadda ku socda adigu maamul goboleed baa joogtaa laakiin ninkii Etoobiyaanka oo 120,000 ah 120 milyan ah hadda waxa la rabaa dhulka in la dhigo Tigray ku rabaan dhulka inay dhigaan daniyow waxa waaye ma aha waxa weeye meesha dad dhib iyo shidaha ka keen dadkaana dhex marsiin meesha waxa la rabaa nabad dadku inay ku noolaadaan baa la rabaa Puntland shida badan baa laga soo maray dhib badan baa laga soo maray ma fahamtay marka waxa weeye dadka dhibaato iyo abaaro iyo dhibti iyo shida ku jiro walwal iyo qaxar gelin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh